magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland waxaa saaka laga soo sheegaya in dagaal maalinkii labaad uu halkaa ka socdo una dhexeeya ciidamada BSF maamulka puntland iyo kuwa daraawiishta maalinkii labaad magaalada boosaaso ee isha dhaqaalaha maamulka puntland ayaa ka qarxay dagaal u dhexeeya ciidamo ka watirsan kuwa puntland hubka culus ayaana labada dhinac ay isku adeegsanayaan dadka ayaana inta badan horay uga qaxay xaafadaha magaalada boosaaso oo dagaalada markaas ay ka socdaan hubka ayaa gaaraya goobaha ka baxsan aaga dagaalka ciidamada dadweynaha qaar ay xaafado cusub ay markaasi ka baxayaan dadaalo ay garwadeen ay ka hayaan dhinacyada ururada bulshada rayidka iyo waxgaradka oo la doonayay in dagaalka lagu qaboojiyo ayaa fashilmay iyadoo dhinacyada xalay aqbalay aroornimadii hore ee saakana intuusan dagaal ka bilaaban in waawaanta ay qaataan hase yeeshee mar kale ayaa lasoo wariyay saaka salaa subaxii in dagaalka uu ka qarxay xaafado ka tirsan magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland ciidanka puntland ayaa u muuqda ama kuwa markaasi ka marqaata madaxweynaha in ay markaasi ay qaadeen weerarka uu yahay maalinkoodii labaad ee markaasi furinta dagaalka gudaha magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland dagaalkan iyo xiisada u dhexeysa dhinacyada markaasi ka watirsan puntland ayaa yimid kadib markii laga soo horjeestay ama kasoo horjeesteen agaasimihii hore ee hay-adda BSF maamulka puntland oo xilka laga qaaday kaas oo markaas weyn ugu yirimeed isla markaana sababay in dhinacyadu markaas xiisadoodu ay cirka isku sii shareerto marka laga soo tago waawaanta ay xalay bilaabeen odayaasha iyo ururada bulshada rayidka markaasi ma jirto ilaa hadda maamulka puntland madaxtooyada war rasmi ee arrintaas ay kasoo saartay dhinaca kalena dowladda mareykanka ayaa si adag uga hortimid dagaalka ka qarxay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee maamulka puntland una dhexeeya ciidamada BSF iyo kuwa maamulka puntland ee daraawiishta qoraal ay soo saartay safaaradda mareykanka ee soomaaliya ayaa waxaa lagu dalbaday in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka boosaaso islamarkaana lagu soo laabto miiska wadahadalka waxaan ugu baaqinah in si deg deg ah loo joojiyo colaada boosaaso laguna soo laabto wadahadal si loo helo xal nabadeed oo laga wada xaajooday si socoshada dagaalka waxa ay waxyeelo gaari markaasi dheeri ah u geysanaysaa un boosaaso iyo markaasi shacabkeeda ayaa lagu yiri qoraalka ay safaaradda mareykanka ee soomaaliya kasoo saartay dagaalka shalay ka qarxay magaalada boosaaso oo ilaa iminkana saaka maalinkii labaad halkaa ka socda mareykanka ayaa horey ugu walaacsanaa in xiisada ciidanka BSF iyo madaxweyne deni u dhexeysa ay isku rigi doonto dagaal sida saakay markaasi ka socota magaalada boosaaso taas oo dhanka ka wicin karta baari dagaaladii lagula jiray kooxaha argagixisada waxaa markaasi qoraalka ay soo saareen safaaradda mareykanka ee soomaaliya ay ku sheegeen ilaa haddana waxaa lasoo sheegayaa khasaaro culus oo dagaalkii shalay aad ugu dhashay oo isbitaalada magaalada boosaaso iyo isbitaalada kale ee magaalooyinka halkaa ku yaalana la dhigay maadaama xaaladda ay aad u adag tahay in faahfaahino dheeraad oo arrimahaas ku saabsan la helana ay weli macluumaadkaas wariyaasha halkaa ku sugan ay baadiguubayaan wixii kusoo kordha wararkeena ayaan iskugu soo gubi doonaa intaan kugu jirno saaxiibayaal